rayaan horta waxaan leenahay labadii waalida dhashay hooyadii iyo aabbihiiba ilaahay waxaan leenahay sabir iyo iimaan allah ka siiyo. ilaahay ha uga dhigo mid ceelalya ah oo jannada ilaahay uu ku geliyo isaga sababkii. nebigeennu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, qofka uu u saqiiro ilmo uu dhalay, 3 canug uu dhalay aasa oo u saqiiraan, jannada ayuu ilaahay gelinayaa. hadduu muslim ahaa oo mu'min ahaa camal saalixana adduunka uu soo shaqaystay jannuu ku mudanayaa. gaalkiiba meeshaa ku bixiyo isagu janno ku heli maayo. laakiin qofka muslimka ah iimaanka laga helay, muslimka ahaa camalkiisuna ama ha yaraada ama ha badnaadee camal soo shaqaystay khayr ah oo salaada tukaday, 3 canug hadday u geeriyoodaan oo u saqiiraan janno ayuu ku geli. reerka waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu janno ay ilaahay uga dhigo oo janno ku helaan canugooda. sida xanuunka badan ee dhibaatada badan ee ilintu la socoto ee runtii xaqiiqatan qalbiga aan ka baxayni uu kaga dhintay, oo ceel intuu ku dhacay iyo god aad u dheer oo 32 mitir dherarkiisu u dhan yahay, balliciisuna 20 sentimitir u dhan yahay. qofkii ka soo saarayay waad arkayseen 6 beri ayaa canuga oxygen meesha lagu siinayay. cunno waa loo dirayay iyo wax uu ku noolaado waa loo dirayay, laakiin canug dhaawacmay oo maskaxdii burburtay oo sankii burburay oo jidhkii burburay oo akhiiranna uu u geeriyooday xanuunadii iyo dhaawacyadii meesha ceelka iyo dhibaatadii markuu kusii dhacayay kasii gaaray. dabcan cunnada inuu qaadan allahu aclam, laakiin oxygenkiisi waxaa loo siinayey macnaha hawo agtiisa ayaa la gelinayaa, sidaas oxygentii hawo ku siinaysay. canuga rayaan waxaan leenahay ilaahay uga baryaynaa inuu uga dhigo ceelalyo, inuu uga dhigo labadiisa waalid ee reer maqrib ahaa. runtii idaacadaha caalamka iyo jaraa'idyada caalamka iyo warfaafinta caalamka ee ama ku hadla luqada carabiga ama ku hadla luqada ingiliishka ama ku hadla luqooyinka caalamiga ee waaweyn oo dhan, wiigii hadda aynu ku dhex jirno wax kale mayna ka hadlaynin. waxa ugu hadal yaraa warbaahinta soomaaliyeed. taana waxay ku tusinaysaa warbaahinta soomaaliyeed wixii af soomaaliga ku soo baxa ayay inta badan og yihiin oy ku mashquulsan yihiin, ee ma oga waxa caalamiga. ama in badan oo dadkeenna warbaahinta ku jirtaaba luqooyinkii aan aqoonin waaweynaa sida luqada carabiga iyo ingiliishka hadday yaqaanaanna aad ulama socdaan oo waxay ku mashquulsan yihiin oy dhaafila yihiin inta un soomaalida. marka wiilkaasi runtii waa risaala caalami ah oo soomaali ku socota, hooyooyinka soomaaliyeed ku socota, aabbooyinka soomaaliyeed ku socota, dowladaha soomaaliyeed ku socota, africa ku socota, carabta ku socota, asia ku socota, yurub ku socota weeye, oo ka dhigan ilmaha in aan la sii daynin ee ilmaha la ilaaliyo. adduunkan aan ku nool nahay mehtelakooyin baa jira. tusaale ahaan innaga soomaalida ah meeqa canug oo saa ka baxay oo yaroo meel ku soo ciyaarayay baa la waayay. beerka waad ogtihiin beryahan keliyaha lagala baxayay, beerka lagala baxayay waa la afdubanaya ilmaheenna. meeqa canug idaacado iyo mayna horumarka adduunku gaaray ee dee wax walba la ogaanaya mayna lahayn. meeqa canug bay miina la kacday. innaga soomaalitaasa inagu badnayn burburkii kadib meeqa ilmood ayaa intay miinadii meel ka soo baxsadeen oy ku ciyaareen oo waxaan ku ciyaara isdheheen ay la kacday oo la qaraxday, oo qaarkood ay ku dhinteen oo hilbahoodii ay googo'een, qaarkoodna ay dhaawac xun indhihii ku waayeen, madaxii qayb go'ay, gacmihii ku waayeen, lugihii ku waayeen, jidhkooda qaybo badan oo muhiim ah ay ku waayeen. waxaad ogaataan waxyaabo fara badan oo maanta ilmuhu ay ku ciyaarayaan oo soo jiidasho ayaga u yeelanayo inay dhibaato u geysan karaan ilmaha. waxyaabo waxaa jira haddii iyagoon ayagu aalla dhibaato ilmaha u geysata ahayn, haddii la isa saaro oo si qaaba la isu saara laga yaaba inuu dab ka dhasho ama qarax ka dhasho ama dhibaato ilmihii wax yeeli karta jidhkiisii ay ka dhalato. waxaan dhihi lahaa rayaan reer maqrib buu ahaa. wiilkaya rayaanee meesha idiin soo saarayo reer maqrib ayuu ahaa. rayaan marka reer maqrib buu ahaa, laakiin wuxuu u yahay hooyo kasta iyo aabba kasta. hooyo markaan leeyahay hooyo iyadaa ilmaha ilaalisa. aabba ilmaha raashin buu u raadiyaa, biil buu u raadiyaa, waa baxa.
dhaqankana meel kastoo raggu joogaanba waa noocaas. laakiin hooyadu waa midda ka laxaw badan, ka danqasho badan, ka dadaal badan ee canuga juhdi ku bixisa. waa midda haddii dhibaata canugeeda soo gaaro garab istaagta ee canugeeda dhibaato walba isaga dhigta weeye. hooyo wax la simani ma jiro. runtii xaqiiqatan ilmo badan ayaa dayacan, ama waddamada afrika ee ku noolnahay ama yurub ku noolnahay, dabaqyaan ku noolnahay. meeqa jeer baad adigu aragtay i daawanaya canug dariishada intuu meel ka soo baxay ama ka soo dhacay. anigu waan garanayaa hadda mar dhow waxaa jirtay kuwo anigu aan indhahaygan saaray dabaqyo, ilan dadka soomaalida dabaqyada mayna aqoonin. canugii intuu dabaqii dariishada ka soo baxay, ilaahay canugii wuxuu ku badbaadiyey meel yar oo dariishada agteeda ahayd oo ku qumaayad baa xoogaa yar derbi laga dhisay. intii baa ilaahay ku badbaadiyey. hooyooyinku intay mararka qaarkood aroosyo ay aadaan maaragtay sheeko ayay canugii guriga uga tegayaan oo laga yaabo inuu gurguurasho bartay, dariishadiibuu ka dhacayaa. runtii waxaan idin leeyahay ceelal iyo waxaa jira meelal duleela baa jirta. hadda waddamada aan ku noolnay siwij yaa jira, meelo siwij ahoo canugaaga hadduu ku dhaco aan dib loo arkayn baa jira. biyaha xawliga ee gudahan dhexda marayaana ay la sii tegayaan oo qashinka uu ku dhimanayo. maxay rayaan maanta ceel nadiif ah buu ku dhacay oo xayawaana masas baa ku jiri kara, abeesooyin baa ku jiri kara. laga yaaba inay dhibaatooyinka hadda canugu u dhintay qayb ka mida inay soo gaarsiiyaan waxyaabaha xayawaanaadka ee ku nooli. 6 beri bal ka warama canug ooyayo oo dhawaaqayo wiida ku hayo hooyada iyo aabbahaas maxay dareemay? khaasatan hooyo maxay dareemaysaa? gobollada soomaalida gobol ka mida maalin dhexdaa waxaa jirtay 4 wiil oo aabba wada dhalay hal ceel inay ku wada dhaceen oo ceelkiina ku wada dumay, qabri uu noqday. waa isla sanadkan aynu hadda ka soo baxnay. 2 bilood iyo 3 bilood kama soo wada wareegin. ugu badnaan 3 bilood baa ka soo wareegtay, haddii kale 2 bilood baa ka soo wareegtay. hooyooyinow, aabbooyinow, aan diyaar garowno ilmaheenna inaan ilaashanno. dhul waxaan ku noolnay siwijiya dheerdheer leh oo xaqiiqatan waxaan ku noolnahay dabaqyo dheerdheer. runtii maalin kasta hadda suuqa haddaad dhex marayso waxaad arkaysaa meel dabaqoo laga dhawaaqayo. canug baa meel luqunta la galay baa lagu leeyahy, dariishadii la galay. canug baa dariishadii ka soo baxay oo meel saaran baa lagu leeyahay. canug baa dariishadii ka soo dhacay baa lagu leeyahay. war aynu ilmaha u dadaalno. dariishadaha guryaha la dhisayo, kuwa dhisayo waxaad ka dhigtaan shabaq geliya, maadaamana nahay dadkeenan soomaalida khaasatan dad dayacan inta badan. hooyooyinku inta badan waxay sameeyaan iyagoo ilmaha ku dadaala, haddana dhaqan bay waxay u leeyihiin sheeko raadis iyo aroosyo iyo meelo inay u wareegaan. ilmihii gurigaa looga tegay, aabbana waxaa laga yaabaa inuu biil raadinayo oo meel uu biil ka soo raadinayay. ilmihii halis bay ku jiraan. war niman yahow, risaalo ayay rayaan risaalo ayuu diray, fariin ayuu diray. fariinta uu rayaan diray waxa weeyaan ilmaha ha la ilaaliyo, ilmaha xifdi ha loo sameeyo, dhowroof ha la sameeyo ka badan dhowroofkii hore. hooyooyinka welibana anigu waxaan leeyahay hooyooyinoo dhowroofkii hore iyo dadaalkaa dadaalayseen dadaal ku dara. berri ka maalin hadday hooyadaasi maanta qabsatay waddanka horumarsan joogta, waddan maaragtay intaasoo dhan oo caalamka oo dhan baa u soo gurmaday. 6 beri baa caalamka meel kasta looga soo gurmaday. waxaa la keenay injineeradii adduunka oo dhan baa la isugu keenay si uun canuga balgodka looga soo badbaadiyo. tusaale ayaan idinku soo khatimayaa. waxaa ka dhacday gobollada soomaalida gobol ka mid a, khaasatan gobolka soomaali galbeed. beri dhoweyd waxaa ka dhacday horta 4 wiil ee hal god ku wada dhintay oo qabriga uu wada noqday oo aabba iyo hooyaba halkaa kaga dhinteen wiilashoodii. waxaa kaloo wax yar ka horeysay meel dudun ah oo kala dilaacsan bay hooyo gabadheedii ku dhacday. markay ku dhacday hadda waad ka helaysaan social mediaha. markay ku dhacday gabadhii wiiqdaasay ka haysaa ka ooyeysa intaasoo habeen. wax walba ilayna horumar ma jiro. afrika waad og tihiin, dowlad iyo wax walba intii loo soo gurmaday tabar intii lalahaa ayaa laga badbaadin waayo meeshii. bal ka warama hooyadaas ma reer maqrib bay ahayd? hooyo soomaaliyeed ayay ahayd. marka hooyooyinow, ilmaheenna aan juhdi samayno. xataa dadkan hadda gaaladii waxay baraan, khaasatan nimanka hadda jayneska oo kale, canuga waxyaabaha dhibka u keenaya way baraan. maalan waxay soo qaadayaan canug yar oo ayay soo qaadayaan, ilmuhu waxyaabahan ay ku ciyaarayaan ilmaha ah bay soo qaadayaan. meesha korontada ayuu ag dhigayaa.
meesha korontadu fartiisa waxaa yare ilmaha u eg buu gelinayaa markaasaa waxaa ka dhigayaa shoogii iyo korontadii inay qabsatay markaasuu garaacayaa canugii maalin dambe wuu ka cabsanayaa meeshii wuxuu ku dhihi sidii wixii yaraa loo garaacay ilmihii yaraaye adigoo kale ah loo garaacayba adigana lagu garaacaya cabsiday ku baran sariirta oo kale wixii canugaa yarka ama bahasha yarta oo kasoo dhacaysa ayaa la tusinaya ilmihii yaraa waa la tumayaa bahashii ilan waa bahal yaroo caag ah markaasuu canugii wuxuu isleeyahay haddaad hadda kadib iska soo rito meeshan sana laguu tumayaa ayaga oo gaalo ah oo ilaahay uu ku tilmaamay inhum ilaa kal ancaami bal hum adallu sabiilan uu ku tilmaamay laakiin waxaa laga wadaa xagga iimaanka iyo xagga islaamnimadka iyo xagga jannada wixii lagu geli lahaa ee xagga maadiga dee waa insaan marka waxaan rabnaa inaan waxyaabo badan oo inaga maqan aan hello hooyooyinow ilmaha ha lagu dadaalo hadda waxyaabahaan aad uga naxo waxaa ka mid ah markaan arrimahan oo kala arko hooyooyinku dugsiyada ilmaha magaalooyinka waaweyn u fasaxaan ilmuhu waa qalqaali marka dugsiga laga soo fasaxo waddadaasaa laga yaabaa inuu isdhaho talaaw oo dhinaca kale mid jooga u talaw isdhaho gaari baa ku dhici kara hooyooyinow ilmihiinna keligood canuga yarka weliba wiilasha iyo gabdhahaba wiilashaa sii daran markuu 5 jir iyo wixii ka koreeya gaara ilaa dhowr iyo 10 jir uu ka gaarayo wax walba way u sahlan yihiin inuu mahtalaka walba ku dhaco marka maxaan idinka rabnaa ilmaha dugsiyada ha ka soo daynina dugsiyada maalan markii la soo daayo ha loo diyaariyo xilligii la soo day lahaa qofka in canugii laga soo qaado meeshii siiba waddamadan afrikan ku noolnahay dabaqyada iyo waddooyinku sanay isu saaran yihiin halis bay ilmuhu u yihiin runtii xaqiiqatan qof kasta oo maanta wax dhalay markay meel ka dhacaan dhibaato ilmihiisi buu soo xusuusanayaa ilaahu ilmahaaga kaaga badbaadi buu leeyahay ilaahu canugaaga kaaga badbaadi ilaahu waxaan kaaga badbaadi marka duci iyo aan isku darno iyo haddana ilaalintii ilan waxaa lagu yidhi asbaabtii la ima baa lagu yidhi xifdintii la imo kadibna ilaahay bari subxaanahu wa tacaala marka hooyooyinka ayaan risaalada u dirayaa hooyooyinka soomaaliyeed afrikaankeenna dadka afrikaanka ah warniyayahu ha la ilaaliya ilmuhu waa mustaqbal adiga hooyada iyo aabbaha dhalay keli a kuma munaafacadayaan qof walaba ilmo dayacan markaad aragto waddo gelaya tallaabaya u istaag inuu ilaahay adiga inuu ku anfaco laga yaabo aabbihii hooyadiiba adiga kaaga manaafacaad badnaada laga yaabaa ilmuhu waa mustaqbalka adduunka weeye maaha xaafadda keli ah inuu mustaqbal u yahay hooyadii aabbihii keliya mustaqbal labadiinu si gooni uga dadaala bulshayna aan ka wada dadaalno oo maalan ilmuhu markay madaarista ka soo baxaan dugsiyada ka soo baxaan iskuullada ka soo baxaan waddooyinka kuwa gaariyaasha wadow ka joojiya taraafik u noqdo oo tallaabiya ilmaha waddamada qaarkood waa la yeelaa arrinkaa laakiin soomaalidu inta badan ma aha marka ilmaha aanu istaagno kuwan kale ee gaalada iyo waxyaabaha aan ku dhex nool way inagu dayanayaan markay inaga arkaan laxajeclahayna qabato saasaan leeyahay ilmaha juhdi ha loogu sameeyo dariishadaha ha laga ilaaliyo meelaha dulduleel ha laga ilaaliyo siwijyada ha laga ilaaliyo ceelasha ha laga ilaaliyo ilmaha ha la xifdiyo